madaxweynihii jamhuuriyaddu intuu tuuta qaatay oo wiilkiisii ka haystay iyo maalinba meel gaari qaraxa loo soo dhigayo dagaal buu ku jiraa siyaasiga Soomaaliga odayga kaaba qabiilka ka wasiirka ka dhaqanka kulligood sarkaalku mid walba wuxuu rabaa inuu banaan fadhiyo islaantiisa qoraayna u yeedho shaqadiisana iska qabto meesha oo barkantiisa soo lama garanayo miyaa madaxweynihii jamhuuriyadda oo tuuta qaba oo banaan taagan oo inta dagaal ku socda iyo waxa aan ka shaqeynayno sawsa ayaan daramaha qofka siyaasiga ee mustaqbal Soomaaliya inuu shaqo ka qabto raba madaxweyne ka noqdo ee maanta carqalada ku noqonaya hawlgalka iyo waxa lagu jiriyo wadanka in la xoreeyo u arka xasan sheekh inuu ka faa'iideeyo inuu isagu kursiga sii joogo ay u noqoto legacy aynan ahayn kursigu raba inuu sii joogo ilaa shabaab ka haysto wadagaalkiisa oo la wada fashilinayo waxaa leeyahay madaxweyne Soomaaliya baa kugu xidhan waana ku garab taaganahay shaqadaana inaan banaan u istaagin taagna rabaa qofka siyaasiga ee Soomaaliga ee mas'uuliyad raba inuu wadanka ka sii qabto bilaa calayk bashabaab oo joogaad ku riyoonaysa inaad mas'uuliyad qabato warshalay markaan taalooyinka dhisaynay ee la lahaa geesiyay maxamed cabdullaah xasan waraw axmed gurey wargabadha xawata ka ahayd away war away dhagaxtuur taalo la dhisay away sheekh bashiir marka la taalooyinka maxaa looga jeeday maxay macno qola gaar aan la dagaalameyno guweysa isku xoreynayno Soomaaliya war kuwan inxiraafka sameynaya ee diinta Ilaahay ka leexday ee saxaabadii mubashiriintii Ilaahay jannada ugu bishaareeyay dhiigooda banaysanaya khawaarijta iyo kuwa xanaanad weydiin markaan kuwan ka gaabsanayno qofka wax sheegayo maxaa dadka u sheegaysa waxaan ku talin lahaa siyaasiga Soomaaliga waliba qolada qurba joogteen waxba ka ogeynaa intay biil qaadataa dana noqonaysa inta oo imanaysa adar ama Starbucks-kiina hadda waa la isla bartay joog waagii Soomaaliya la qaxayay baan gaaris tagnay bal afakaada la yiraahdo Soomaaliya laga aqoonin baan baran waagii daba qolo kale Starbucks bay noo keentay hadda TikTok iyo waxyaalaha qolada nadiga weeyaan garanay iyo maxaa la yiraahdaa baashan social media iyo cayaanka baraha bulshada iyo ciyaar waxaas hadda dawladnimadu ku soo dhamaatay aan ku noqono aan garab istaagno dawladnimadaas aan madaxweynihii baa wadanka jiray xaaladda inuu wadanka ku jiro aan u diyaar garoon reer Jubbaland waxaan rabnaa inaan isku tashano oo dagaal galno war dawladnimadii Soomaaliya shantii sano hadda 60 sano la soo dhaafay gobolka Gado oo kala maanta 80% amniga aan anu dhisay dawladda Soomaaliyeed baa burburisay saaka wiilasha aan ay hadii intaan dagaal galayna 3 meelood aan qabto see loo haynayaa meel inaad xoreyso inaad hayso koodeesa muhiimsan haddaad hay weeyad ku baabiso haddii dawladnimadii Soomaaliya maanta xasan sheekh wuxuu sameeyay shalay isaga ugu dambeeyay maanta diyaar tahay madaxweynahana waan garab istaaganahay taakulada uga baahanahay inuu ballan qaado inuu sameeyo siyaasiga Soomaaliya mustaqbal siyaasadeeda kala hor war shacabku ha ku qiimeeyeen dagaalka shabaab qofku waxa uu ka qabtay shacabku ha ku qiimeeyeen madaxweynaha banaanka taagan ee ordaya ee gaariga qaraxa loo dhigayo danta uu leeyahay inay tahay legacy uu ka tagay inay tahay Soomaaliya xora oo ninka ka dambeeyay askari Amson uu ilaalinayo wiil Soomaali uu ilaalinayo gurigiisana uu joogo hiskooda faraha badan iyo dhaxanta badan la dhigayana laga qaado meesha aan ogaano wadanku inuu xaalad dagaal ku jiro madaxweynaha waxaan ku leeyahay saacadda dagaalka markii lagu jiro sarkaalku mid la toogtay mid la dalacsiyo noqda mid la eriyo mid shaqada loo sii kordhiyo noqda golaha wasiirada xataa haddii ugu noqotaan yaa wasiir oo saameyn dagaalka kule yaa ku lahayn hal leeyahay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dib uga fakaraan wasiirkan aan qaadanaysa muxuu dagaalka ku soo kordhinayaa taanana waan ka bilaabaynaa wasiirro badan halkan joogan dhaqdhaqaaqi kareen hadda waan ka takhalusaynaa waxaan leenahay yaa dagaal geli kara nin walba intuu saameyn ku yeelan kariyo wuxuu dagaal ka tiri karo ku qiimaysnaanayaa
kuma qiimaysnaanayo intuu sharaxaad iyo socsocod iyo isqalqaloocin uu samayn karayo aan ku talagalna middaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin dagaal buu waddanku ku jiraa aan ku talagalno aan taa qaadano aan u diyaar garow